yahay madaxweynaha dalka mad wasiir soo magacaabayso maxay haytay maskax ahaan bal iyo mentally iyo physical bal inuu caafimaad qabo wasiirka aad noo keenaysaa bal horta marka hore noo soo hubi gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Maroodi Jeex oo ay weheliyaan mas'uuliyiin iyo qaar ka mid ah shaqaalaha xafiiska waxbarashada ee gobolka Maroodi Jeex oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa si adag uga hadlay dhibaatooyin iyo cagad juglayn uu ku hayo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland shaqadii xafiiska waxbarashada ee gobolka Maroodi Jeex waxaana istul taageen isla markaasina ay ka warbixiyeen dhibaatooyinka wasiirka waxbarashadu uu ku hayo socoshada hawl maalmeedka shaqo ee xafiiska waxbarashada ee gobolka Maroodi Jeex waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Maroodi Jeex Cabdikariin Cali Caaruf saddex himilay lahayd waxa weeye waa fidinta tayadhowrka oo ah kormeerka iyo maamul wanaaga ama maamul daadejinta haddii aan dul istaago labada qodob ee fidinta iyo qodobka maamul wanaaga anu ka gudoomiye ahaan waxa la magacaabay gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex bishii December 24keedii xilkana waxa la wareegay bishii koobaad 16keedii muddada aan joogay saddexda bilood ku dhow muddadaaba shaqada gobolku waxay ka socon lahayd waxa weeye hadimooyinka wasiirka wasaaradda waxbarashadu uu ku hayo taas oo nidaamkii waxbarasho si baalmarsan siyaasadda waxbarashada ee qaranka uu burburiyay deegaanadii gobolka tusaale ahaan gobolka Maroodi Jeex oo ka kooban degmooyin aad u fara badan wasiirka wasaaradda waxbarashadu gobolkii Maroodi Jeex wuxuu ku soo koobay laba degmo adana wuxuu ku saleeyay ma aqaan isagoo mararka qaar sheeganaya inay yihiin degmo doorashooyin culayska ugu badanna aniga saareen isaga ma fuulaan culaysku mana saarna cabashadu mar walba aniga ay ku xidhantahay labada degmo ee ku soo koobay waa degmada Hargeysa markaan leeyahay degmada Hargeysa waa intee degmada Hargeysa su'aalaha waxa hoos imanaya degmada Faraweyne degmada Daarusalaam degmada Laaskeel Sabawanaag Dacarta Balaymataan Cadaadley dhammaan degmooyinkaas oo dhan baa hoos imanaya degmooyinkaas oo dhan waxa ay hoos tagayaan gudoomiyaha degmada waxbarashada ee Hargeysa marka haddaba su'aasha koobaad ee isweydiiyay taasi ma maamul daadejin baa mise waa maamul ururin taasi ma maamul daadejin baa mise waa maamul ururin marka uu wasiirku ku andacoonayo ama oranayo waxaan sameeynaa maamul daadejin taasi ma maamul ururin oo shakhsi gaar ah oo ay isku hayb yihiin oo ku soo ururiyay dhammaan degmooyinkii kale maamulkii gobolkan oo cagaha u qabtay degmada kale waa degmada Salaxri labada degmo ee wasiirku magacaabay ee uu ku tilmaamay inay yihiin DOyo ama District Education Officers wax la yiraahdo ama gudoomiyaasha waxbarashada ee degmooyinka oo ah degmada Hargeysa oo ay intaas oo deegaan hoos imanayo iyo degmada Salaxley labada degmo haddaan in dul istaago tirada ardayda labada degmo iyo dugsiyada degmada Salaxley 24 dugsi baa hoos yimaada tirada ardayduna waa 2373 degmada deegaanada kale waa degmooyinkii kale ee Daarusalaam Faraweyne Laaskeel Cadaadley dhammaan degmooyinkii kale Balaymataan waxaas oo dhan marka laga reebo degmada Salaxley aanay ku jirin degmada Hargeysa waxay dugsiyada tirahaan ku dhow yihiin 100 ama hal bay dhiman yihiin 100 tirada ardayda ee deegaanada dugsiyada ama degmooyinka ku jira waa Faraweyne Daarusalaam Laaskeel Cadaadley Sabawanaag Dacarta Balaymataan waxaas oo dhan waxa tirada ardaydu waxa ku dhow yihiin 9000 oo arday wasiirka wasaaradda waxbarashada waxaan weydiinayaa sharciga hal degmo 24 dugsi ku yaalaan ka dhigay degmo waxbarasho oo u yeelay gudoomiye degmo waxbarasho ama DO ama District Education Officer degmooyinka inta leeg
ee tir ahaan iyo arday ahaan iyo dugsi ahaanba ka badanna ka dhigay kuwa DO aan lahayn shalay waraaqdii